Yes, guys, so dhawaada dhammaantiin. Welcome everyone. Maanta waa weekendigeenii sabtidii aynu kulmi jirnay maalin walba asbuuci. Sabtidana aynu kala qaadano update waxyaalihii ugu dambeeyay ee businesska maxay idin kusoo kordhay iyo sidoo kale business overview, business presentation inaynu wadaagno macluumaad badan oo muhiima. Yes, marka maanta wax weeyaan runtii waxa weeyaan maalin aad u qurux badan dabcan dad badan oo faraxsan waa resultigoodii wadaagi doonaa maxaan kaloo aan doonaynaa inaan ka faa'iidaysano oo dadka iminka cusub ee soo biiraya iyaguna fursad u heli doonaan dadkii ka faa'iidaystayna iyaguna ay chanskii heleen oo iyaguna runtii fursad aad u qurux badan u noqotay innagana hadda aynu baanayna ka faa'iidaysano imise qof bay tahay maanta maalintoodii ugu horreysay first time commentiga soo qora insha Allah 11111 maalintii kugu horreysay meetingka uu yahay meetingkii kugu horreeyay ama asxaabtaada ama familkaaga inuu kugu soo casumay ii soo qora 11 yes masha Allah beautiful 11111 beautiful okay haddaba caawa waxaad ama galabta waxaad arki doontaan fursadan dahabiga ah iyo sidii runtii aad uga faa'iidaysan doontaan okay let's go marka waxaan tegi doonaa presentationka okay halkan waxaad ku arkaysaan waxa weeyaan the biggest promotion in trade industry waxa weeyaan waana run waa promotion noocan maanta kambaniye maanta bixiya ma jiraan fursad dahabiya ayaan maanta haysanaa inta badan maxaa trading laga faa'iidaa trading wall sidiisa ahaanba waa crypto wall waa forex wall waxa weeyaan waa suuqyadan maanta laga trade gareeyo waqtiyada kooban saasoo markaa lacagaha sarifka ah looga faa'iidaysto la isku celceliyo taasoo markaa ah runtii fursadaha ugu qaalisan ee xilligan maanta jira qofku suu lacag uga samayn lahaa ay fududahay suuqan yes sida lacag looga sameeyo aad bay u fududahay sidoo kalena sida lacag loogu lumiyana aad bay u fududahay laakiin mar walba riski baa jira mar kasta suuq waxa weeyaan wuxuu leeyahay upside down taa in marka hore niyadda lagu hayo oo lagu xisaabtamo laakiin waxaasoo dhan ka awood badan oo mar walba meesha imanaysa markuu qofku helo aqoon iyo cilmi wanaagsan sidoo kalena system sax ah oo u shaqeeya taasoo mar walba xukumaysa system habka risk managementigiisa habka u maamulayo lacagtiisa habka suuqa faa'iidada kusoo maamulay waayo waa cilmi suuqani ay u baahan yihiin haddaba maxaa haddaba iyaduna maanta soo kordhay systemkani wuxuu kaloo maanta uu wax badan ka bedelay akademiyadii hore ee jiray akademiyada sideedaba qofku waynu ka barto aqoonta waynu ka barto forexkii waynu ka barto maanta cryptadii tradingkii cilmigii uu suuqan lacag kaga samayn lahaa sidoo kalena wuxuu sameeyey systemkani runtii inuu u fudaydiyo qof walba isagoo suuqana baranaya inuu lacagna ka samayn karo haddana inuu sameeyo sidoo kale inuu qof waliba maanta uu helo challenge free ah oo taasoo uu ku bilaabayo suuqan waxyaalaha runtii uu kaga duwanaaday akademigani cajiibka ku yahay ka mid ah suuqyada kale waa laga helayaa akademiya waa laga helayaa maxay inaad hesho sometimes signals laakiin isagu wuxuu haystaa inaad hesho haddana plus extra accounts oo dadka aan lacag kaga baxayn kanan iminka arkayna tusaale ahaan free 25k challenge waxaad helaysaa 25,000 account ay ku jirto oo ay ka bilaabantay 14 August dad badan ba ka soo faa'iidaystay absolute aad baan uga hambalyeynaya oo waliba iminka already profit sameynaya waan arki doonaa resultigooda iyo sidoo kalena ilaa 20ka bisha inta aan la gaarin inuu qofku helayo hadduu ku soo biiro cash x isagoo bixinaya 149 $149 keliya oo ah akademiga feegiisa ama subscriptionkiisa ama billing intaasunba bixinaya intaa wixii ka dambeeya wuxuu helayaa 25k account taasoo markaa uu lacag uu ku helayo aanu isagu lahayn uu ku shaqaysanayo oo uu helayo 80% profitkeeda marka taasna waxa weeye fursadda dahabiga ee qof kasto maanta cash soo join garanaya uu helayo ama ku soo biiraya marka hadda waxaynu arki doonaa haddaba sidee ayaan uga faa'iideysan karaa sidee buu yani u shaqeynaya resultigii baan arki doonaa waxyaalahaas oo dhan insha Allah let's go okay sideeda caadiga waxaa jirta markuu qofku helo uu ku soo biiro cash x waxaa loo soo diri doonaa email hadhowta wuxuu iska diiwaan gelin doonaa Tradex Master iyaguna waa qayb la shaqeysa oo bot firma ah oo qaybaha bixiya iyaguna lacagta macnihii dadka ay ka kireystaan la midka ah adduunyada meelahan kale ee lacagaha laga wada kireysto dhammaantood Finder Next FTMO Tradex Master iyaguna waa qayb noocaasa marka la shaqeeyana sidoo kale trade cash x oo qofku helayo inuu macnihii free account challenge laga siiyo taasoo waa cash x free ku siinayo halkan ay ka iibiyaan challenge-yada qof kastoo ku soo biira cash x xilligan maanta la joogo ilaa 20ka bisha
okay account kan marka mad helays hadhowt ma bixinaysid lacag qofka iminka kusoo biira from 20 21 qofkii kusoo biira arbacada wixii ka dambeeya waxa weeyaan wixii ka bilaabma wuxuu bixinayaa accountkaas lacagtiisu la baxaya membershipkiisana oo la baxaya laakiin qofka iminka jooga aad buu nasiib badan yahay maxaad helaysaa marka inuu ku yimaado emailkan marka ugu horeysa email baad helaysaa membershipa oo maxay day inaad kusoo biirtay Akashex sidoo kalena email kula socdo oo Tradex Mastery oo ah isaguna inaad iska diiwaan geliso sign up emailkaaga geliso marka intaa geliso usernamekii passwordkii samaysato kabacdi marka waxaad sugaysaa maalinta ugu horeysa 2 maalmood 3 maalmood ilaa 4 maalmood gudahood dadka qaarkood isla maanta markay member noqdaan isla maanta way helaan laakiin marka emailkan marka uu soo dhaco emailkaagii passwordkii iyo server namekii khalaas marka saasay shaqadu ku bilaabmaysaa saasay dhawto trade-kaaga ku bilaabaysaa marka maxaa dhacay marka resultigii waa kuwan marka waa resultigii maaha resultigii weekii hore resultigina waa resultigii weekii hadda u dambeeyay okay weliba waxaan soo qaatay wax weeyaan waa in yar oo kamid ah maaha dhammaantood hadda halkan aad arkaysaan wax weeyaan waa dadkii qaatay resultska suuqii maanta aan soo marnay ugu dambeeyay oo weliba anaga in the community dhexdeeda groupkayga dhexdiisa ah okay waxay ku xidhan yihiin profitadu akoonada dadka dad baa jira akoonada aan haysanin 25 kaliya dad baa haysta akoono 50k dad baa haysta akoono 100k dad baa haysta akoono 200k okay ilaa 200 kun oo dollar ku jirto oo dhammaantood mid walba iyagu ay maal gashadeen laakiin akoonadii ugu dambeeyay ee bishii ugu dambeysay 50k ayaa dad heleen xitaa akoon konto kun ay ku jirto dadkii kusoo biiray the last month laakiin haddana fursadii waa laynoo soo daayay mar kale iyadoo waqtigii ka badan yahay oo dadkana looga faa'iideynay marka businesskan runtii waa win qofku maanta wuxuu luminayaa jirto fursad aad u dahabiya fursad maanta uu dhaqaale ku sameeyo fursad maanta uu keliya isagoon suuqan aqoonba u lahayn uu maalin walba faa'iido ka heli karo runtii taas iyaduna cajiiba halkan waxaad arkaysaan akoonada iyaguna kala duwan ee baabar maxay awoodda runtii aad arkaysaan resultsiga qaarkood ay sameynayaan profit cajiiba oo aan inaba caadi ahayn unbelievable laakiin qaar waxaad arkaysaan $40 sameynaya qaar waxaad arkaysaan $50 sameynaya qaar waxaad arkaysaan $1,000 sameynaya qaar waxaad arkaysaan 2,500 6,000 okay halkan imika aad arkaysaan oo kale MT5 kan ama MT4 kan iyadana 6k inuu profit uu sameeyo accountkaas marka runtii cajiib weeyaan haddaba imika maxaad arkaysaan account 25k ah oo la furay daraad 25k account shalay mooyee daraad baa la furay ya daraad tii korreysay ama arbacadii baa la furay account ما شاء الله إن أدو عجيبة إن أكون كلا رنتي مركبة وصاو قريبة فرصة إن أدو قفايدستي إن أولي وودن كيتشو جن مقديشو أوكي إن imagine guys مركب نانتا سميني سيد $1,500 a day ولو أكون نادو سيد عادي قبله قوة challenge account ولا كورينيا لكن هادو أنا مركب ضمن أكون كانوا يخصو صاري live account بيسو بدلي مركب ضمن سيد عادي قا مركب 15% وقر مركب أنا كده أنا سيد لو كورينيا سيد وشقيني حصلا إن أكون كان مركز وحويان وحسمي in one day this profit aad buu u yaryahay akoon ahaan marka loo eego inuu profit kan sameynayo laakiin haddana wax kasta waa macquul marka loo eego tradeada uu qaatay ama tradeada uu sameeyay marka small trades oo yar runtii fudud deetana qofku ku sameynaya maanta a day 1,500 bil baa lagu shaqeeya okay marka imagine akoonkaas oo maanta isaguna qofku maanta uu diro sameynaya and yes marka maxaynu arkaynaa haddaba oo muhiima oo halkan aad ka arki doontaan oo fursadda waxyaalahan dahabiga ah ku jira waxa weeyaan dad waxa jira suuqa runtii aan aqoon u lahayn oo just doonayeen inay ka faa'iideystaan suuqan dad waxa jira aqoontii suuqi aqoon u leh oo iyaguna fursadan markay heleen haddana uga sii faa'iideysanaya suuqi marka intii oo dhan baa dadkii isku dhex jiraan haddaba maxaynu hadda tegi doonaa waxaan idin tusi doonaa qaybtan website-ka maxay yahay akoonka challenge-ga ah sidee buu u shaqeynayaa sidee baa qofku maxay yahay uga faa'iideysanayaa sidee buu macni u shaqeynayaa tusaale ahaan oo kale hadda waxaan tegi doonaa website-ka okay halkan aad arkaysaan waa Tradex Mastery waa akoonkan meesha laga furto oo ah maxay yahay qaybta aynu ka helayno 25k-ga akoonada maanta challenge-ga fast payout-kiisu waa 8 maalmood every week baad la bixi kartaa payout-kaaga sidoo kalena waxa weeye ilaa 200 kun oo akoon ilaa 5 million accounts waad heli kartaa laakiin imika inta caadiga maxay yahay qofku iibsan karaa waa ilaa 200 kun strategy-yadu raacaya tradeskiisu waa unlimited yes sidoo kalena xataa affiliate buu leeyahay oo qofkii doonaya uga faa'iideysan karaa oo lagu bay gareynayo mar walba ay dad kale linkigaaga iska diiwaan geliyaan iyadana adduunka maanta affiliate waa fursadaha ugu waaweyn ee chance-yada lacagta laga sameeyo yes adigoo ka iibsanaya meeshii oo macmiilka ah haddana macmiil kale haddii aad ku soo xidho meeshii adiguna fursad kale dhaqaale sii samayn karta marka qaar free accounts aad ka heli kartaa xitaa drawdown-ka loogu talagalay waa 5% ilaa 10% sida maalintii oo kale a day waxa lagu ogoliyay 5% sidoo kale waxa weeyaan si guudna waxa lagu ogoliyay 10%
profit targetkuna waa sidoo kale waa 10 ilaa 5% saasaad markaa aad maxay u shaqaynaya haddaba waxaa jira akoono 10k 25k 50k 100k ilaa 200 kuna akoonada iminka tusaale ahaan oo kale akoonka 100 kuna waxa weeyaan $99 ayuu qofku ku iibsanaya ta kaliya 10% ayuu korinaya marka sideeda caadiga akoonadan challenge-yada waa khasab in la koriyo mar walba 10% maaha TradeX Master wax khaas ah laakiin waa all over the world dhammaan both firms ee bixiya challenge-yada akoonada ah okay hadda waxaad arkaysaan halkan 25k 25k waa kana hadda free-ga ku heli doontaan $255 free ayaad ku helaysaan laakiin qofkii arbacada ku soo biira maanta waa 20 ku eegi qofkaasi isagaas ka bixinaya $255 laakiin hadduu ku guuleysto phase 1 phase 2 hadhow lacagtiisu waa refund waa loo soo celinaya markuu ku guuleysto challenge-ga 80 ilaa maxay 80% inuu xeliya profitkiisa maxaa la korinaya markaa akoonka bilowga markuu saa akoonka u bilaabmo isla markaaba hore profitkii ka samayn maysid laakiin markuu saa akoonka u bilaabmo 10% baa la korinaya bilowga 10% waa 2500 waa akoonka 2500 lagu koriya iminka akoonkan soo arkaynay already 1500 baa lagu koriya a day haddana next day hadduu doono waxa laga yaabaa inuu maanta week soo socdo uu saa ku baaso maxay 1000 extra ga next in hadduu doono 5% ku baasi karo next 2 weeks okay waxa weeyaan hadba suuqu siduu u shaqeeyo fursadu bixinay maaha every day in la sameeyo 1500 laakiin marka qaarkood in la sameeyo profit wanaagsan oo joogto ah baa muhiim ah okay marka xigta imika halkan waxaan arkaynaa 10% waa akoonka 5 kuna waa $2500 number 1 phase 1 phase 2 waa 5% 5% marka waxa weeyaan 1250 inuu gudbo akoonkaaga intaas markay timaado verification-kii waa lagu weydiinaya passportkaaga sharcigaaga maxay billing address waxyaalo noocaas lagu weydiinaya okay verification intaas markay dhamaato wixii ka dambe funded account baad helaysaa akoonkaaga si live ayuu kugu shaqaynaya waxa weeyaan sidii lamida ayaa 10% drawdown-ka lagu ogolyahay maxay maximum sidoo kale si guud a day waxa lagu ogolyahay 1250 hadduu hoos u dhaco akoonkaas wuu kaa gubanaya okay laakiin sida caadiga markaad raacayso system kaama gubanaya akoonku waa sababtoo waxa weeye risk management-igi wixii dhan way calculate gayseen haddaba inaga cash x halkeenan waxa weeyaan qofku akoonka markuu haysto waxa uu helayaa wax la yiraahdo signals okay marka hadhow taad ku soo biirtaa cash x halkan aad tegaysaa dabeetana waxa weeyaan halkan waxaad dooranaysaa trade locker emailkaaga iyo passwordkii halkan aad digayso passwordkii lagu soo dirayo passwordkina waa markii arkaynay qaybtii mar kale aan ku yara noqonaya meeshii baan idinka tusayaa yes qaybtii halkan waa kiinoo yaalay passwordka dad la socotaan waa kan okay passwordkaas lagu soo diray iyo certificate-intaas deetana intaa markuu kuu timaado ayaad ku geli doontaa qaybtaadan kale okay halkan aad ku qoraysaa passwordkii wixii oo dhan deetana brokerkii baad dooranaysaa intiiba deetana connected buu kuu sameynaya connected markuu sameynaya home markaad timaado sidoo kale ayaa kusoo baxaysa akoonkaagii inta lacagtiisii uu yahay qiimihiisii halkaas kusoo fadhiisanaya 25k tusaale ahaan ama 50k haddii imika laakiin intaan ku jirno challenge-ga waxaad heli doontaa 25k kadib markaas waxa weeye connected markuu kuu noqdo tap to trade halkan waxaa soo bixi doona tradeadii signalka ahaa ee hadhowta automatic uu qofku u qaadanayay signalska kuwaasoo ah maxay lasoo diri doonaa sell ama buy suuq hadba ku noqonaya qofka magaciisa educatorka ama macalinka markaa soo diraya gold XRUSD waa gold weeyaan 2 minutes ayuu soconaya trade-ka gudihiisa inaad ku aqbasho marka taasna wax weeyaan waa qaabka uu uga faa'iideysanayo qofku trade-da marka uu qaadanayo tap to trade oo signals ay soo dhacayaan waxaa jira trade alerts oo isaguna uu ka faa'iideysanayo qofku oo markaa u imanaysa inuu copy paste isticmaalo taana qofkii fahansan uu isticmaali karaa oo suuqa marka sidoo kale loo soo diro inuu qaato copy paste sida stop loss-kii entry point-kii iyo TB1 iyo TB2 halkuu kaga baxayo waxyaalo dhan loo sharaxayo loo soo dhigay marka isagu kaga baxaya hadda meeshii uu doonayo taasina waa qaybkaas educatorskayga iyaguna halkan ay ku jiraan akademiyadana halkan qofku soo gelaya wuxuu ka baranayaa suuqan inuu fahmo oo barto hadduu yahay qof cusub halkanaad gelaysaa waxaad helaysaa casharadii from A to Z beginner maxaa looga baahan yahay siduu baran lahaa technologiyada terminology-ga mistake-yada traderska la sameeyo waxyaalahaas oo dhan iyo maxay tahay forex iyo muxuu siduu qofku uga faa'iideysan karaa iyo waxyaalaha suuqan ku saabsan ee lacagaha hadda suuqii aad tahay qof cusub oo kale xigta haddaad tahay advanced halkanaad iyadana gelaysaa oo more information-kii ku saabsanaa waxyaalihii oo dhan aad halkan ka helaysaa fundamentally oo dhan dhammaantood advanced haddaad tahayna iyadana
expert haddaad tahayna boom iyadana waxaad sii heli doontaa more inaad fahanto suuqani siduu doji yacni la dhahdo kanalka la dhahdo kanalka waxyaalahaas oo dhan aad usii barato aad fahanto iyadana hadhow marka intaas aad ka soo gudubto waxaad heli doontaa scanners kuu shaqaynaya scannerskaas oo aad hadhowto halkan eegayso sida loo isticmaalo mid walba golden rain iyo wixii lamida sida loo isticmaalo deetana halkan markaad soo gasho waxa weeyaan inaad maxaa yeelay aad ku trade garanayso suuqii siduu u shaqaynaya waxyaalahaas oo dhan marka hadda waxa weeyaan shaqa weli ka socota iminka back office-ka please back come back soon buu leeyahay laakiin waan ka tegin hadda kuwa kale sii checkimayna wixii aad halkan ka wada arkaysaa dhammaantood waxa weeyaan waa scanners kuu fududeynaya dhammaan suuqa saad markaad buy tegaysid iyo markaad sell tegaysid adigoo maxaa yeelay barashadii aqoontiina watayna sometimes qudhaadu aad trades qaadan karto suuqii ah adigoo halkan ka dooranaya maxaa yeelay tradeada aad doonayso euro USD tusaale ahaan oo kale oo hadda aad iyaduna runtii u kacsan ma garanaysa marka 5 minute 10 minute 15 minute waad ku checkmaysaa marka wuxuu kuu sheegayaa suuqani ma sell ba ma buy ba mararka qaarkood scannerskani kaasii caawinayaan adigoo adeegsanaya analyze-kaaga oo the trade view tegaya waxyaalahaas oo dhan laakiin hadda halkan iyaguna waa kuusii fudaydinayaan more marka aad bay u badan yihiin dabcan waxa weeyaan scanners aad u fara badan baa ku jira oo loogu talagalay qofku suuqan inuu kaga faa'iidaysto intaa kadib okay live sessions baa jira live sessions oo hadhowto aad halkan ku arki doontaan qofkii soo gelaya liveka iminka labadan qof oo kale maanta liveka soo gelaya saacadda halkan aad ka eegaysaa waqtiga adiga kugu beegan tahay telegramkana inta badan lasoo dhigaa before 10 minutes intaanay soo gelin oo kale oo lagu sii sheegaya saad ugu sii diyaar garowda reply baa jira casharadii ku dhaafay halkan aad ku ceshanaysaa dib baad u wada daawanaysaa dhammaantood educatorska kala duwan ee casharada soo galay halkan waxaa noo soo geli doona isaguna qof Soomaali ah oo runtii sidaan marar badan idin sheegayna hadda wada hadal socdo already xitaa videoiskii soo duubay oo gelinaya la geliyay wixii dhan diyaar yihiin laakiin inuu active noqdo inuu bilaabo shaqadii ay harsan tahay insha Allah xayda ustaadkayga okay intaa wakan ka baxno waxaan tegi doonaa qaybteenii kale ee ku saabsanayd sidee ayuu u shaqeeyaa looga faa'iideysan karaa qaybihiisa kala duwan marka ustaad Rooda ayaa joogta oo aan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo qaybta dambe maxay yahay Akash X maanta Akash X min xoog saarayna Akash X sidee baa looga faa'iideysan karaa qaybihiisa kala duwan sida marketingkiisa sida fursadihiisa kale uu leeyahay iyadana insha Allah marka soo dhaw ustaad Rooda welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا مقليا سفي عم لا مقليا عدك اللي سو قاريا si weyn ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله horta aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan martida ku jirta la soo casamay ee maaragtay fursaddan raba inay ka faa'iidaystaan waa idin hambalyaynayaa waxaan ku leeyahay hambalyo sida wacan idin soo ajiibteen biidni illaahi alkariim codsigii walaaladiin idiin soo gudbiyeen qofka walaalkay wax wanaagsan kula jecel waa la soo ajiiba maasha allah tabaaraka allah shaakirna waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay liir qiimo badan oo maasha allah habeenii maalin doonaya inuu communitygiisa ku ballaariyo oo uu gaadhsiiyo wixii uu faa'iidada u arka weeyaan ilaahay jisaayigeeda taa adigana ha ku sii biidni illaahi alkariim akaashagas maanta wayna aragnay faa'iidada taala wayna aragnay wax yar baan rabaa inaan ka tuso insha allah haddii ilaahay qadaro biidni illaahi alkariim kambanigan akaashagas haddaba yaa aabiyo hooyo ah yuu ka farcamay xaguu ka yimaadaa waxa weeyaan wax kasta waxbuu ku tiirsan yahay soomaalida waxay tiraa geedna xidid la-aan ma baxo ruudkiisu waa ayo yaa soo aasaasay yaa salka usoo dhigay intaasaan rabaa inaad la wadaago insha allah haddii aad diyaar u tihiin inaydun kambanigan la noqotaan shuraako ood akaashagas maal gashataan oo maaragta aad diyaartiin idinka go-anta insha allah maanta chatka iigu soo qora waxaan eegayaa inta qofee diyaarka ah because dadku waxay u kala baxayaan maxaa la yidhi buriyo biyaa loo kala baxaya soomaalida odhan jirtay yaa diyaaro doonaya inuu faa'iidadan gacanta ku dhigo oona ka fakanin biidni illaahi alkariim maasha allah tabaaraka allah maasha allah maasha allah okay share screen baan odhanayaa wax yar baan idin tusayaa maaragtay kambanigu ciddu yahay waxaas oo dhan kadibna insha allah xagga su-aalahaynu geli doonaa haddii ilahay qadaro screenkaygaan share garaynayaa because kambanigani wuxuu ka tirsan yahay waxa loo yaqaano network marketingka ayuu ka tirsan yahay waydiin muuqataa baan filaya shaashadayda insha allah full screen baan ka dhigi doonaa si aad u wada aragtaan oo aad halkaa igala socotaan insha allah full screen baan ka dhigayaa okay bismillaahi raxmaani raxiim mar labaad magacaygu waa Roodo Cilmi oo ku sugan dalka Canada kambanigan muddaan ka tirsanaa maasha allah tabaaraka allah oo aan maaragtay u kuurgalayay oo aan eegayay oo markii aan kusoo biirayay xitaa iyadoon cidna ii soo sheegin ayaan maaragtay soo arkay oo wanaagiisa ogaaday halkaan kasoo arkayna maanta waxaan rabaa inaan idin tuso insha allah because baaritaanku meelaha qaar buu kula gelayaa sometimes aad wuxuu ogaato wuxuu ka tirsan yahay network marketing kambaniyada loo yaqaano
social sellingka affiliate marketingka kolba saad u taqaanid waxa aasaasay oo iskale oo salka u dhigay kambanigani lamaana halka idinka muuqda waxaa Josh iyo Jenna waa lamaana reer Mareykan ah mudday suuqan ku jireen way fahmeen way arkeen wixii ay wanaag iyo ka arkeen maaragtay xumaan labadaba intay qaadeen ay wax ka barteen ayaga affiliate markii hore ahaan jiray barta ay taagnaan jiray ayay markaa waxay ku dabaqeen kambanigooda haddaynu aasaasayno kambani aynu dhisayno kambani aynu dadka la wadaagayno aynu community aasaasayno maxaynu ka reebnaa maxaynu ku darnaa dadka sidee baynu ugu faa'iideynaa because qofku markuu isagu faa'iido waynu dadka u faa'iideeyo waata aynu maanta ka hadlayno zoomka isugu nimidayna waa taasi saal ajligeed bay MDC u sameeyeen waxaa dhaa waxa weeyaan founded by affiliates for affiliates affiliate baa helay oo asaasay affiliate-na u helay affiliate-keebin inaguna ka mid nahay markay asaasayeen halkaas ka bilaabeen waxay ku bilaabeen 3 shay may badnayn maasha Allah tabaaraka Allah maantana wuxuu marayaa almost $1 billion company ayuu ku socdaa historygiisu wuu dheer yahay xilligii lasoo asaasay 2014 kii ahayd wuu 10 jirsaday companigu hadduuna companigu dhaafo 5 sano u horeeya wuu taabagalay waxa weeyaan company dhaqaajiyay oo aan maaragtay bankruptcy ku dhacaynin waxna ku dhacaynin oo isagu isku filan buu noqday maalin waxbay soo kordhinayeen oo soo siyaadinayeen opportunity ama fursadii way balaadhin waxay ka dhigeen mid global ah oo qof kasta ka faa'iidi kara ay ka dhigeen wadanka aad doonto joogo alaabada ay hayaan because Akasha wuxuu ka mid yahay digital product-yadooda ayuu ka mid yahay waa alaabadii dadku u baahnaayeen marka waxay uga gol lahayn Akasha product-yada ay soo saaraan saa idin sheegay network marketing company waxa weeyaan weight loss-kii waa xaragadii waa isqurxintii waxa weeyaan caafimaadkii waxa everything marka physical product dadkii ka qabtireen waxay dhahdeen xagee baynu eegnaa haddaba academy aynu aasaasno dadka looga faa'iideeyo suuqan digitalka doonaya because adduunku ballaaran qof waxa laga rabaa inuu forecastii suuqa xiiseynayo oon alaabada doonayninba marka inay taana kala qabtiraan bay salka maaragta u dhigan Akasha ka soo aasaaseen sanadkii 2020 waxaa kale ku soo kordhiyeen qayb travel ah marka digitalkooda waxaa kamid ah Akasha ka qaybta travelka qofkii doonaya ka faa'iideysanay travel portal-kayga waxaas oo dhan haddaad safrayso haddaad xiisayso haddaad cruise raacayso waxaas oo dhan discount deep ah uu jiro shay kasta ma dul istaagi karno kama hadli karno laakiin maanta Akasha gasban si fiican u sharaxnay oo fahanteen si aad uga faa'iideystaan challenge-ka dhammaanteynba intan oo suuq MDC way ka tirsan tahay isqurxintii TVU-lka shidaalkii hadday noqoto tii caafimaadkiisaan idiin soo sheegay maaragtay daryeelkii korka travelkii tan Akasha secretary foregaskii suuqyada midnaba kama maqna kambaniguna hadduu intaas oo waxayo qofku meel kale ma eegayaba tusaale rada hadda idin siiyo adigoo hadda maanta Akasha ku jiro arday wax baranaya hadduu stress kugu yara furmo oo madaxaagu maaragtay ardaynimadii wixii ardaynimadu waa cajiib moogta arday bayna wadan haye daily spraygeeni baa yaalo brain spray baa dibsan saad ka isticmaalaysaa moogta oo wixii kuu fududaynaysa oo maskaxdaadii kala dejinaysa because wixii caafimaadku waa muhiim jiddan isaga laftigiisa moogta energy haddaad u baato tacbaansan tahay adoo jaarkii dul fadhiya analyze garanaysaa tiraahdo warniyo indhii baan isku haystaa kafeygeeni healthy coffee baa yaalo kii dukaamada kaaga caafimaad badan oo fiican oo ay CBD oil tii lagu daray geedkii lagu daray kafeygii kala yaala energy drinkigi baa yaalo isaguna maaragtay oo ku jira green caffeine tii caadiga dabiiciga ahayd yacni anything aad u baahan tahay meesha baad ka helaysaa hadda maskax noqoto caafimaad noqoto marka isku soo ururiyo industry kasta website-ka yaraad haysato eed Akasha ka dhex samaysatay ayuu ku jiraa ood ka faa'iideysanaysaa halkaad Amazon ka adeegan lahayd dukaankaagaad ka adeeganaysaa halkee taa laga helaa waxa kaloo kamanigan leeyahay qaabkii maaragtay lacagta marka la bixinayo haddii aad doonayso inaad ka dhigato affiliate inagu teamkeena markasta waxaan kula talinaa barnaamijkan u isticmaal mid aad dadkan uga faa'iideyso oo keliya ha isku koobin affiliate noqo halkaad customer ka noqon lahayd affiliate noqo kolleyba xubin baad ka tahay haddaad xubin ka tahay saan idinla wadaagayna maanta aniga walaalkay Shaakir iyo tiimka intooda kaleba idinla soo wadaageen ee lagugu soo casimay zoomka u soo casun ardayda kale ee danaynaysa suuqan affiliate noqo adna faa'iid igana u faa'iidee affiliate programka marka aad qaadatid maxay noqonaysaa markaasi inaad barnaamijkii wadaajiso adiguna bonus hesho bonuskii markaa muxuu noqonayaa mid kuu abuura dhaqaale oo dhaxalgal ah oo aad bil kasta helaysid week kasta helaysid kamaniguna saan idiin sheegay muxuu ka tirsan yahay network marketing ka tirsan yahay waa kamani ganacsi weeyaan adiga lacagtii aad sameynaysay ee aad maaragtay halkii lagu oranayay Akashagas caynkan oo sidan oo platformkan lacag dhigo adoo ardaynimadaada iska bixin laakiin aday wax kuugu daraya platforma dadku isku qaldaan Akashagas ma lacag baan dhiganayaa bay dadku badan weydiiyaan
asagoo akashagas lacag dhigata kaama rabo waxa keliya kaa rabaa ardaynimadii waxaad ku baranaysay laakiin ayagaa bonus ku siinaya ama abaalmarintii dadkii aad soo refergalisa ku siinaya marka isagii wax dib kuugu soo celinaya intaasoo dariiqana waad ku heli kartaa haddii ay kaa go-antayna tiim dhisato haddaad xitaa keliga isku koobto tirado team building ma raba laftigeedii waad faa'iiday siad ku faa'iiday because accountadii aad haysatay baa kuu shaqeeyey challenge-kaagii baa fundir kuu noqday ama real account-kaagii baa kuu kobcay labadii dhinacba sideedaa dariiqo ayuu kamanigeenu maaragta u bixiyaa bonusyada iyo maaragtay bishii lacagaha soo gelayay dadka oo jamstar bonus leh customerkii leh wax kasta leh customerka ayaa kuu noqon kara xitaa akashagas dad soo geliya kuu noqon kara oo iyagu rabo inay customer noqdaan alaabadan hadda idiin sheegay ajaanibka iyo cid kasta isticmaasho la jecel yahay ayaa dadkeena u sheegi kartaa soomaali community odan karta alaab noocaas halka Amazon ka iibsan lahayd annaga idiin hayna ama meelaha kale ka gadan leh dukaamada ana alaabta idiin haya أنا كاشة كسبان كترسانة لكن ويب سايت كي واكن because وحي هايسكو ليميت هايسكو كوبين إيدنكو dadkii la wadaaga haddaad ka shakas ka tirsantay micnaheedu maaha fursadii kale dadkii uma sheegi kartid dadkii suuqa tagayay gabdhaha taqaana wiilal baa taqaana familaa taqaana uber driver baa taqaana waxaad leedahay war uber driver baa gaaska shidaalkan ku dhaqaalaynaya baasha shidaalkan haya dhaqaalaynaysay gabdhihi taqaana waxaad leedahay saaxiibayaal makeup cajiibo EU standard oo wixii laga saaray maaragtay chemicalkii wixii baan hayaa idin qurxinaya shaambadii timahan hayaa dukaanka markaad gasho indha daraandar baa qofka ku dhacay subxaanallah markaad eegtid 27 baraano alaaba ku jirta baraan kasta alaaba ka farcamee markaa isku koobin waa global wixii meel kasta waa la geeyaa taasaa adigana maaragtay markaa kuu soo hoynaysa faa'iido marka taan uga golleena inaad la wadaagno waa taasi unni akaashagsuna ku koobnaanina sidii kalena uga faa'iidaysta waa cunto bisil oo lagu soo hordhigay oo lagu leeyahay cun ood ka sii jeedo marka qof kasta waxaan dhahaa soo jeesta billihii baa jira isaguna oo commission kiile oo maaragtay rank check matching kiile oo maintenance bonus kiile everything leh baa jira marka taasina complainkeena weeyaan waxa la isku wareerinaya maanta maaha because marka teamku maaragtay qofku teamka kasoo mid noqdo aan waxaas dhan sharaxnaa qaybaa jira haddaba qofka hadduu doonayo ku bilaabi karo maantoo kale baraan bakasku idinma anfacaayo waxa idin anfacaysa toos inaad kaasha ka soo iibsataan maalinba xaalad baa taagan baraan bakasku waxa anfacayaa qofka doonaya hadda intuu soo galo inuu wax discountiya helo bisha dambe oo kale haddada kaashakas membershipkiisa doonaysa matalan qof doonaya uu iibsado baraan bakas baa anfacaya intuu 199 ka iibsado ayuu discounti 25% ku helaya laakiin maanta oo kale toos waxaad iibsan kartaa kaashakas si aad u hesho account-kaaga challenge-ka ahaa waa fursad weeyaan waa package adoo iskuul bilaabaya oo lagu buugaag bilaashana waan ku haynaa iyo qalimaan bilaasha iyo bag iyo bilaasha waan ku haynaa weeyaan because TREDx mastery baa tii ah buugaagtii qalimaantii adigu arday baa tahay dugsi soo gelaya ama jaamacad soo gelaya wax baranaya oo fiigii tuition bixinaya tuitionkaagii baa lagu raaciyey alaab bilaasha halkii aad ka iibsan lahayd accountkii ayaa lagu riday waa bilaash wixii tooliskii aad maaragtay suuqan ku gelaysay marka maanta taas aynu hor taalla in aynu ka faa'iidnina aynu aad ugu dadaalana muhiim ay tahay okay tan waa baraan bagaskiisa waan ka gudbaynaa waa tusaalayaal qof markuu soo galo hadduu iibsado tan 200 matalan oo kale ta 79 ka hadduu iibsado ta 199 ka hadduu iibsado in uu helayo hadduu afar qof ka sii iibiyo jamstar bonuskoodii oo sidii oo kale ah oo basically ay ka dhignaanayso adigu qof meeshii bilaash ku soo galo lacag ka bixin baad ka dhignaanaysa bas wixii afar qof baad la wadaagtay afartii qof mid kasta commission baa kaaga soo dhacay commissionkii intii aad siisatay in eg buu noqday waxaa la dhahaa buy one and marka buy iibiso sell four hal xaba iibso afarna iibi ayaa la dhahdaa waa bilaash baad kusoo gashay potential income-ka qofku uu ka samayn karo bishii inta halka ku qoran ee idinka muuqata guarantee ma aha waayo waxay ku xidhan tahay qof kasta dhaqaaqa uu sameeyo waaniga hadda idiin sheegay dad akaashaas customer keliya ka noqoto ood iska isaga shaqaysato ood macallimiinta signalkooda qaadato account-kaaga iska kobcisato challenge-kaaga funded lagaaga dhigo hawshaada keligaa wadatid waa halkeeda laakiin haddaad tirahdid hawshan waan wadaajinayaa oo ma ku seexanaya anigu birkinta uma dheeraysanayo keligii isuma koobayo waa kaa potential income-kaagii waa ka halkaa ku qoran maahan alaabta inay kaa soo gelayso aad iibiso akashagas laftigiisa bonuskii ayaad ku leedahay because teamkaagiiba kobcaya team building ayaad u socotaa maasha allah tabaaraka allah haddii aynu eegno xagga technology kamanigu hayso technology caadiya maaha akashagas baabay leeyihin inaynu ognahay wixii scanner ina tusaayey shaakir eed halkaa ka arkayseen ayagaa iskale ayagaa lacag ku bixiyey ayagaa develop gareeyey back office-ka geliyey si loo isticmaalo oo qofku aan meel kale wax ugu doonanin marka technology marka la eego waa top notch technology ayuu kamanigan leeyahay aan fee extra ay lagaa qaadaynin halka kamaniyada qaar ka odhanayaan programkii waa kana iibso
scanner kan ama software kana suuqa ku eegayaan hayna kana la iibso kana waa 20 kani waa 30 kani waa maxay lagu yaryareeyo mid kasta by the time aad tiraahdo bishii bixi dhowr boqol oo doolar isku noqoto way jiraan kambaniyo anaa arkay youtube-da intood daawato fiidiyo mid kasta link yaro dheeraadi la socdo oo wax gaara la iibinayo waa isla kambanigii membershipkaaga waa lacag wixii kalena waa lacag marka taana way yaqaanaan kambaniyo George muxuu yidhi day anigu waxaan rabaa waxaygii one thing inuu noqdo one membership fee inuu noqdo أنا أرضي وحكر إسكو مشغولين شقدي سوته تكنولوجيا بحي أنا كفكرين سيستم كأكاشة بس آب كبحي أنا كفكرين وحكوا لي ربي تتبقى ويدي هذا والله العظيم ما له تقول ويلي الله اللي حيقول مركان ممبرشيب فيه بحي إنه بيجينا لكم العجارة أدفانس كم العجارة مركان مش رحاي قيبت إكسبرت كم العجارة أنا أقربها نو وون في وون تايم ثينج وهي بشي مربط بحساب لعقت هذا سي خلاص وحا كتير أكاشة بس أيضا كاك في نيسا ما هو حلقو كلا qaadayo lagu qanqanjeerinay maaha marka taan xisaabta ku darsada waa nimco aynu haysano oo uu sameeyay ninka meesha iska lihi membershipka akaashaga wuxuu ahaan jiray 200 iyo ka badan buu ahaan jiray hoos baa loo soo dhigay hadda maanta 150 weeyaan laakiin marka subscription-ka lagu iibsanayo bahalka waxaan jeedaa brand-ka lagu iibsanayo ee aad helaysa discount-ka xitaa 120 buu noqdaa challenge-kan hadda waxaa la socotay inuu qofku challenge-ka baaso markuu challenge ka gudbo wixii ka dambeeya ayuu 150 ka soo degi karaa laakiin inta uu ku jiro account-ka challenge-ka 150 uu la baxayaa 120 buu gaarsiiyey George sidii u waday yaa ku qasbay liirayaasha kambaniga akaashagaas haddaynu kobcinayno aynu dadka qiimaha ka dhinno wuu ka dhimay wuu dhegaystay 200 dheeraad buu ka soo degay intii aan ku jiro kambaniga anigu anoo akaashagaas ka mid ahayn baan ogaa membershipkiisa inta la siiyo because waan ogaa xaaladda ka socota anoo alaabta iibiya ayaan akaashagasna dusha kala socday waa la soo dejiyey waa la soo waday 150 baa laga dhigay regular price-kii intii discount ku iibsanaysana waxay noqotay 120 brand bagas marka taana waxa weyn mid la xusuusnaanayo oo qofku u baahan yahay maskaxda ku hayo maxaa banaanka ka jira maxaan akaashagas ku haystaa isbarbar dhigtid keebaa marka ani ii faa'iido badan okay maxaan ka hadlaynaa right timing waqtigu waa cajiib runtii maaha wax la dayici karo fursaduna waa qaali marbay ku soo martaa bilaadan waxaan fursad waa marad garan weydo marad gaari weydo marka ay ku soo marto waa in aad faa'iidada ogaatid maxaa iigu jira meeshan faa'iidaya dadka qaar baa challenge hore intuu dhaafay si isaga daba wareegayeen caynkan sida maanta soo dhamaaday ala walaalmii xurmi challenge-kii soo baraarugay marka qofka doonaya inuu challenge ka faa'iideysto hadal xataa kama keeno qor linkiga ii soo dir iga dabagee zoomkaas markuu dhammaado ayaad haddaad diyaar tahay odhanaysaa qofkii ku keenay hay walaal linkiga ii soo dir diiwaan geli intaanu iga dhammaan ma sugaysa xitaa 1 hour dambe waa qofka diyaarkee timeka oo qiimihiisa qofka kalena suu isaga daba wareegayo waqtiga wuxuu kaga dhacaa inta uu leeyahay beri baan kusoo qaraaciyo caynkan iyo maxay iyo kii kale marka the right timing weeyaan maxaa kaloo timekaasi inoo sheegaya waqtigu inaanu ku sugaynin adiga adduunku soconaayo uu horumaraayo oo laga tegaayo waxa hadda lagu jiro oo fursadaha maanta aanay soo noqonaynin qaar badani oo waxa maanta shaqooyinka la tagaa aanay jiri doonin laga maarmi doono shaqooyin badan waxaan ka hadlaynaa waa digital halka adduunku u socdo moogta waa skill aad iska leedahay oo ku shaqaysanaysan cid kugu haysanin time-ku taana way noo sheegayaan waxaynu before covid naqaani 2019 hadda qaar badani ma jiraan businessyadii ama ganacsiyadii naqaani qaar badani way xidhmeen asxaabaa taqaano meela ka shaqayn jirtay way kasoo fadhiisteen maxaa waxaasoo dhan sababay waqtiga marka waqtigu waa muhiim inta goorta inuu qofku yidhaahdo maxaa aniga backup ah maxaa noloshayda wixii inta ka dambeeya ku dabaqay noolaata qof nool oo daily lifekiisii maaragtay maaraynayaad inaad maaraysid taasina waa muhiim jiddan intaasaan kusoo koobayaa waxaan rabaa wax yar intaanan ka bixin khadka inaan wax yar idin tuso haddii ilahay qadro sheer labaadaan sameeyo kambaniga dad badan waxay weydiiyaan in badan ay weydiiyeen shaakir la weydiiyey tiimka la weydiiyaa kambanigan MDC ma ku kalsoonaan karnaa marka MDC dadka qaar baan u aqoon markay cusub yihiin akashagas ma ku kalsoonaan karnaa bay dhahaan moogta akashagas cidda lihi waaniga idiin sheega waa lamaanahaasi waxa weeyaan George Jana waa founderska kambaniga haddii aad doonayso haddaad maanta cusub tahay oo su-aashaas kaa dhex guuxaysa intaanan su-aalaha furin haddii ilaahay qadar intaanan furin waxaan qof kasta kula taliya anigu inuu wax soo akhriyo soo eego akashagas marka loo diro u baaritaan sameeyo because hadda waxa batay scammerski platform kasta waxa jira dadka scam garaynaya oo ku daba dhuumanaya kambaniyadii magaca lahaa isku daba qarinaya qiiqa
deetana markay dadka dhacaan wax wixii u eg la arka la leeyahay waa wixii oo kale Soomaaliya tira colku guli cabsi ku gureeb dadkii wixii lagu soo dhacayo hore hadda foorga soo la isku dhacay dad badan yiraahdaan laakiin akademiyada akashagas waa different taasaa raba marka inaad ila fahantaan marka dadkii la soo dhacay meelahaasi soo arkay platform kala soo arkay inay yiraahdaan kana waa kii cabsi iyagoo wixii raba cabsidu fadhiid ka dhigto dib u fadhiisiso ayaa dhici karta taasaan raba marka ma walaalaha cusub weligood arag tiimkeenu way og yihiin way ku kalsoon yihiin sababta uga mid yihiin ay ugu jiraan ayaa idiin cadaynaysa adigana kuugu yeedheen ay kuu soo cusubeen marka akashagas dadkaas iskale u hoos tagaa haddaa doonayso youtube-koodu waa kan waxa ku jira wixii brand ay lahaayeen oo dhan baa ku jira anything oo Medelicus leeyahay taasoo idiin sheegay waa xubin ka mid ah MDC akashagas xubin weeyaan waa geedka caleentiisi weeyaan laakiin geedkii weynaa waayo waa MDC dadka iska lihi Josh iyo Jenna suuqayay ka yihiin dad la yaqaan ma yihiin hadda company-ga markaad eegtid wuxuu sameeyaa annual meeting buu sameeyaa hadda meetingka sanadkan soo socda October Dubai baa lagu qaban doonaa waa meeting ballaaran intaas oo kun oo thousands and thousands oo affiliate ayaa imanaya oo ka tirsan company-ga shaashadaha dadkan ka muuqdaan waa dad soo fadhiisto waa dad la wareysto waa dad la yaqaano dad isku qariya maaha website dabadii ku qarsoon oo wajigooda la arag maaha waa dad la arko oo meel kasta ka muuqda ayaga iyo tiimkooduba marka taas eeg qiimee qadari Jenna gabadha uu qabo Josh waa qoraa buugeedu waa ka Amazon buu ku jiraa laba buug bay qortay labadeedii buug waa kuwan halkan ay ku jiraan kana hadda bar dhawaatal intaan ku jira company-ga kan waday uu dhamaaday way soo gelisay ma kula tahay scammer baa buug Amazon gelin lahaa no haddii maaragta qofku uu yahay qof noloshiisu dhisan tahay oo maaragta ay heer gaarsiisan tahay xitaa in baa loo sameeyaa sometimes wax in iyadoo Jenna loo sameeyo Josh midna ma arag laakiin waxaan uga gol leeyahay inaydu fahantaan yaa daba fadhiya company-gan yaa tiirka u dhigay yaa salka u dhigay yaa soo aasaasay waa labadaa qof ee labadaa qof caan yihiin waa laba qof oo mid kasta uu 40 years ka yar yahay hadda weli midna 40 muu gaadhin waa under 40 labadooduba haddana waxay ku wadaan company-gaasi maskax ayay ku wadaan iyo cilmi ay soo barteen iyo aqoonta suuqan ka soo arkeen Jenna sida oo kale iyadu still affiliate bay ka tahay company-ga iyadoo haddana uu qabo mulkiiluhu waxay ka mid tahay dumarka kuwa ugu lacagta badan top earnerska website-kan waa website-kii aanu ka soo arkay weeyaan markaan raadinayay company aan ku biiro anoo company hore badan soo arkay ayaan waxaan doonayay company aan anigu garanayo wuxuu yahay ilaahay MDC buu ka dhigay waxay ka mid tahay female-ka marka la eego dadka ugu lacagta badan number 2 bay kaga jirtaa globally oo dhan network marketing marka la isu geeyo monthly maxay samaysaa $1,060,000 lacag gaadhay samaysaa ka warama $1,060,000 intaa process garay lacag gaadhaysa ayay samaysaa bishii estimationka lagu qiyaaso celcelis ahaan way ka yaraataa way ka badataa laakiin milyankaasi iyo wixii hareerihiisa abay ku warwareegtaa waa bishii hadda monthly akashagasna iyaga iskale oo salka u dhigay marka waxaan uga goleeya inaad ila fahantaan weeyaan akashagas dadka iskale waa ayo dad muuqda ma yihiin la ogyahay la yaqaano la garanayo meel lagu hagaago xafiis leh mise waa dadaan shaashadaha laga arago qarsoon waa no face weeyaan taasna rabina idin tuso insha Allah hadii la qadaro idinkuna researchkiina gaarka waad samayn kartaan biidnillahi alkariim intaasan kaga baxaya wixii su'aala insha Allah ayaan hadda u furaynaa biidnillahi alkariim walaalaha su'aalo ku taagan yihiin kusoo dhawaada shaakir baan ku wareejinaya Masha Allah, so beautiful. Aad baad u mahadsan tahay narooda runtii sida quruxda badan ee noola wadaagtay information. Iminka waxaan odhan karaa yani enough wax macluumaad ku filan qof kastoo halkan fadhiya oo mid kastoo xitaa daawan doona uu arkaya. Waxa meesha markaa inaga baxaysa su'aalahii beryahan ina dawakhriyay oo maxay ahaday xaggee ma aamini karaa ma kana ma kuba okay waayo xitaa every question mochi su'aal kasta oo qof kasta weydiinayo isagoo hore noo weydiiya mid kale soo gelaya soo dana the same question what okay waxa loo baahan yahay in yes absolute way bateen طبعا laakiin haddana waxa loo baahan yahay inaan caqliga isticmaalo marka iminka waxyaalaha scam-ka ama baran hayin scam waa taqaan 100% iminka cash checks tusaale ahaan oo kale muxuu kaa qaadanayaa nothing ma lacag baad gelinaysaa no okay marka wanaad fahantaa meesha marka wax weeyaan waa academy marka hadduu academy yahay academy maxaa laga bixiyaa waa fee maxaa marka laga faa'iidaya
just membership unde adna maxaad faa'iidaysaa intaa in ka badan cilmiba meesha ka faa'iidaysaa traders baad ka faa'iidaysaa account free aa lagu siiyey marka waxaad eegtaa boqolkiiba imisaad faa'iido haysataa adigu 90% 10% baa company-ga kaa galay 90% adiga faa'iido qaba okay marka taasaa muhiima inay markaa isweydiinayno fursadda marka chance markaad maanta business bilaabaysana waxaad eegaysaa businesskani waa sidee businesskani mustaqbalkiisu waa sidee fursad ahaan sidee waan uga faa'iidaysan karaa after that waxa weeyaan mar walba noloshu waa risk noloshu waa risk marka talaabaad qaadayso waa risk business haddaad bilaabayso waa risk mar walba aad macnihii company cusub bilaabayso waa risk mar walba aad maanta isbedel doonaysa inaad samayso waa risk laakiin maxaad u baahan tahay riskiga intiisa badan waa wax aanad ogeyn waxaad la kulmi doonto laakiin cabirka guudi inaad og tahay waxaad maanta samaynaysa inuu yahay wax macquula aad berito horumar ka gaari kartid marka tallaabada markaad qaado iminka mustaqbalkeenna ma ogaan karno waa risk sooma mustaqbalkeena maanta qofna ma ogaan karo miyuu dhiman doonaa miyuu guulaysan doonaa miyuu taajiri doonaa miyuu faqiiri doonaa no one knows laakiin markaad maanta wax bilaabayso mar walba maxaa maskaxda ku jira riyooyin hadafyo himilooyin waxba kaa dhex buuxa hadafyo hiigsasho okay aad leedahay mar walba beri baan xaqiijinaya wiiga dama xaqiijinaya sanadka dama xaqiijinaya yaa kuu ballan qaaday it's biggest risk okay marka waxa weeyaan inaad qaadanayso riskigii ugu weynaa noloshaada same business maanta markaad bilaabaysin waa saas oo nooc uu doona ha noqde laakiin bilowga inaad yeelato horta dadka ku jira businesska waa sidii maxay yaday intee uu soo socday siduu u shaqaynayo fursad marka noocaas oo kale markaad tahay qof saas oo kale u fakara waxaad noqonaysaa qof si logic ah wax walba ay maxay yaday ugu socon karaan ama dareemi karaan ama ogaan kara meesha uu kuntiisa dhiganayo okay aniga maanta rooda oo kale meel odhan karnaa maanta dee meel iska intaan gallaaban odhan lahayn dadkana soo yaaca no okay impossible laakiin haddana sidoo kale waxa weeyaan waxaan ognahay in meeshani ay tahay mar walba ku dhiirasho iyo fursaduhu qaadasho iyo go'aano taana waxa weeyaan inaanu samayno kudhaceedii la nimaadno si dadka kalena maanta noogu daydaan aan ugu noqono inspiration sidoo kale aanu maxayday u abuurno jid ay maanta mari karaan taasaa ah waxa ugu mudan ee aan maanta mas-uuliyad ahaan u qaadano waayo waan samayn karnaa anagu inaan iska cunno oo halkaas ka fadhiisano traderkiga qaadano maanta 100 accounts baa noo furan tusaale ahaan oo kale qof waliba maanta in ka badan lacag iyo commission buu ka samayn karaa kaasha keligii intuu iska dhex fadhiyo laakiin haddana inaan bulshadii kale u faa'iideyno oo dadkii kale uga faa'iideyno oo aan ognahay qof walba inaga mida inuu u baahan yahay horumar iyo isbedel iyo dhaqaale inagoo og inaan soo marnay meelo kala duwan iyo marxalad kala duwan inoo shaqayn waayay sababtaasaa keentay marka inaan qaadano mar walba opportunitieska iyagoon ognahay annagoo kaliya inaan samayn karno haddaan doono haddana inaan la wadaagno dadkii kale saad uga faa'iidaysataan marka yes inaan isqaadno oo maxay iscaawino we grow together waanu ku wada koraynaa dhammaantiin horumar baan wada samaynaa qof kastoo inaga mid inuu guulaysanaya taasaa markaa horumarka dunida maanta lagu gaadha waana waxyaalaha maanta galbeed iyo horumarada kambaniyada waaweyn caalamka dee meel walba ka gaadhay dadka maanta big leaderska waaweyn maanta iyo network marketing affiliate waxyaalaha ku guulaysteen bay ka mid tahay inay maanta dhisaan dadka kale when you help enough other people you get what you want yacniga dad maanta markaad caawiso dad kale ay helaan waxay u baahan yihiin adna waxaad helaysaa waxaad u baahan tahay dabcan because dadkii kalaad caawis 100% markaad guulaysato anaguna guulaysanayna kambanigeen maanta dhisaynaa qof walba wuxuu marinayaa wuxuu doonaya horumar uu ka gaadho yes adiguna sidoo kale markaad horumarkii gaadho waan sii wada koraynaa horumarkii wada samaynaa marka haddaad taa wada maskax furan tihiin oo aanay maskaxdiina ku jirin inta badan qofku markuu yahay close minded wuxuu oranayaa maxaad iga faa'iidaysaa dadka ugu badan dhibaatadan kala kulay kamid aniga maxaad iga faa'iidaysaa maxaan adiga kaa faa'iidaya you need this opportunity or not what yeah fursad ma u baahan tahay Soomaaliya China kan qaado 25k account bad helaysaa $150 bad bixinaysaa China kaas ma doonaysaa inaad ka faa'iidaysto laakiin maxaad iga faa'iidaysaa what go on iska taga dawrad lama weydiiyo waxa la nasiibkaaga haddaad albaabka weydiiso maxaan helaya yani maxaad iga rabtaa dee nasiibku iska tegaya laakiin saas si lamida inaad ogaato on hey meesha maxaan ka faa'iidaya fursaddaas qofka kale oo banmaynka markiiba waxa usoo baxaysa China soo wow wallahi aad bad walaal u mahadsantahay jazaakallah khayr fursaddan dahabigaad la soo wadaagtay halkaasaa kaa ka bilaamaysaa farxad adigana aad leedahay wow qof baan maanta caawiyey oo maanta fursad tusay isbedel u abuuray berituu lacag samaynaya hambalyo yacniga waxa weeyaan uu ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay yacniga aad baad u mahadsan tahay anigu saas leeyahay waan u hambalyeynaya marka waa qaabkii wax u shaqaynayaan as a team iyo system ahaanba dee kambaniguna inoo joojin maayo kambanigu haddaan maanta ku biirnay haddaynan ku biirinba it's growing isagu wuu koraya wuu soconaya dadkii way ka faa'iidaysanayaan because keligaa laguma abuurin okay millions qof adduunka daafiisa meel walba jooga ka faa'iidaysanaya fursaddii maalin walba qaadanaya arkaya saasoo kale la kulmaya marka adiguna waxaad weeyaan inaad maanta qayb ka noqoto fursaddaas oo dhinacaaga qabsataa muhiima insha allah okay waxaa inoo furan markaa su'aalihii halkaa waxa weeye ustaado meel idinka la soo xiriiro yes waxaad nagala soo xiriiri kartaan telegramyada whatsappyada meelahayga tusaale ahaan oo kale Sheer Shaakir facebookgayga instagram anywhere roodana sidoo kale haddaad gurbada kusoo biirtaana waad arki doontaan insha allah magacyadii dee macluumaadkii mar kasta waan dhex taaganay number 1 qofkii doonaya wuxuu nooga soo qori doonaa
hadduu akoonka gubto maxaa la sameeyaa challenge-ga ku guuleysan weyso yes akoon kalun baad furanaysa hadduu kaa gubto dhib male laakiin way adagtahay suu ku gubtaa mar walba maadaama risk management la sameynayo oo wixii ay maamulan yihiin waxa weeyaan ma sahlana inuu qofka akoon ka gubto haddaanu isagu suuqa gelayn adigu inaad gashaa ayay sabab u noqon kartaa inaad suuqa deg deg isaga gubta akoonka meeqa bilood ayaa haysataa inaad challenge-ga win garayso intaad doonto no limit wal dadka qaar ayaad su-aalahooda ku daalaysaa ya way dhacdaa no problem no problem isdiiwaangelinta dib naga haysta dib male waa laydka caawinaya qofkii markaa kaa caawinayo kale ayaad la xidhiidhaysaa suu kaaga caawiya insha allah telegramka ma lahan meel la idinkala soo xidhiidhi karo horta gruubada markaad ku jirtaan waad arkaysaa magacyada iyada oo kale qofkii marka gruub ku jira telegram oo kale haddaad ku jirto whatsapp magacun baad dee click siinaysaa si toosun baad qoraal noogu soo diri doontaa insha allah laakiin mar walba la socda qofka coachkaaga qofka kusoo casumay sponsorkaaga ayaad mar walba helaysaa yacniga connectionkiisa si toos aad u weydiisanaysaa caawitaan inaguna waxaan sameynay group weyn oo lasugu yimaado oo telegram whatsapp taasoo aan ugu talagalay dadkii inaan heshelada is caawino marka keligii ma jeedad cid kasta coachkaaga tahay ama sponsorkaaga nib male meel baan ku wada jirnaa dhammaanteen waan is caawinaynaa miitina gaaraynu leenahay kuwan been leynoo aad kusoo geli kartaan su-aaluhu xitaa miitinada naga dhex weydiin kartaan anyway xitaa gruubadan ku dhex jirnaayo qoraalada qofku intaasoo qof ay kala soo xidhiidha gruupka dhexdiisa telegram whatsappka maalin walba qoraal iga soo dira cod iga soo dira aan anigu sponsor garino tiimka kale caawiyaan ama qof kale uu soo sponsor garay 3 habeen ka hor baa isdiiwaan geliyey oo lacagtii shubay wax account weli ma hayo yes taas waxay ku imanaysaa 3-4 days 4-5 days sida caadiga ah laakiin bilowga waa inaad iska diiwaan gelisaan TradeX Mastery emailka ku dhex jira sign upka waa inaad emailkaaga geliso kadib markaa ayaa email kuu soo dhacaya kabacdi markaad haddana sii diiwaan gelinaysaa markaasay kuu soo diraya insha allah dadka hore member akashex discount lama helayo isaga qofku discount ma helayo caadi ahaan membershipka ah laakiin waxaa weeyaan waa challenge-yada freega dadka kusoo biiraya weeyaan telegram sidee ku helayaa sidee isu diiwaan geliyaa waxaa ku soo casumay kollay qof kuu soo diray linkiga isla qofkaas luuqa u gal linkigii weydii qofku doona ha noqdo maaniga ama rooda ama qof kala yan qofku doona noqon karaa laakiin qofkii kusoo casmaa linkiga ku haya insha allah ustaad haddaan ku jiro akashex aan rabo in challenge cusub iibsado isla shuruudii miyaa la isku xidhaya may challenge cusub markaad iibsanayso hadda xilligan la joogo fursad weyn baa kugu jirtaba dadka maanta doonaya inay hadda iibsadaan akoon cusub oo maxay yahay akash maxay yahay TradeX Mastery akoonkana dad doonaysa maanta inaad iibsato imika halkan oo kale waxaan tegaynaa challenge start challenge waxaad helaysaa discount dadka ex memberska ah dhammaantood imika waxaad iibsanaysaa account 25k akashex baad ku qoraysaa 50 big deal 50% baad haysataa haddaad iibsanayso account kontokuna same 300 iyo xoogaa buu ahaa okay adigu laakiin waxaad ku heshay 162 dad iibsanayso account 100 kuna 500 buu ahaa 200 iyo 50 baad ku helaysaa ilaa iyo dhowr maalmood weeyaan 5 days hadda 5 maalmood baa hadhay ilaa 5 maalmood baad fursadda haysataan haddaad phase 1 ku guulaysan weydo waxba ma dhacayaan akoonku haddii aanu markaa gubanin oo mar walba yacniga uu haysto shuruuddiisii oo aanay waxba hoos uga dhicin 10% aanu dhicin total baa la isku daraya akoonkaaga waad haysanaysaa phase 1 xilligaa doontad ka gudub iminka matalan ka soo qaad phase 1 misaa lagu gudbaa phase 1 maxaa lagaaga baahan yahay 25,000 10% waa 2,500 2,500 haddaan maalintii $100 faa'iido imisaa noqonaysaa marka waa 25 maalmood a day haddaan faa'iido marka bil baa laga yaabaa inaad kaga gubto phase 1 haddaad hesho traders fiican muhiimaduna ma aha inaad hesho traders waaweyn laakiin maalinkii inaad samayn kartid $100 ayaaba laga yaabaa bil gudaheed inaad phase 1 kaga gudubto haddii 1,200 loo eegana waa 12 maalmood marka 12 maalmood ilaa 5 waxaad kaga gudbi kartaa muddo fiican bil iyo xoogaa baad kaga gudbi kartaa haddii sidaa loo eego
iminka dadka qaar baa samaynaya ka badan intaa suuqa iyagu soo gelayaba oo fursaddii markay dee aqoontii iyo wixii ka faaidaysanaya suuqii gelaya maanta suuqu waa waxa weeyaan qof walba uu geli kara uu ka faaidaysan kara laakiin wuxuu u baahan yahay inuu helo dee aqoontii iyo cilmigii iyo istaraatiijiyadii iyo systemkii deetana markaa uu geli karo qofku trades yararoo fudfudud dad maalintii $50 samayso dad $100 samayso best guuleed ugaas it's easy absolute $100 every day baad samayn kartaa $100 haddaanad suuqa xitaa aqoon u lahayn $100 baad samayn kartaa a day haddaad fahansan tahay sida loo dhigto stop loss haddaad fahansan tahay sida loo dhigto maxaa yeelay entry sida loo galo intaas baad u baahanta account 25k 3-4 days miyaan sugaynaa ustaad ya dadba waa si qaar baa laga yaabaa inay maalinta baa helaan laakiin haddaad emailkii raacdo shuruuddii markiiba waa kuu buuxsamaysa waxaa kaloo ogaataa waad diiwaan gelin kartaa qofka aad rabtid shuruuddu maaha in 25k-ga trading master intuu ka imanaya aad sugtid akashagas diiwaangelintiisu waa taxidhmaysa taas weeyaan marka isku day inaad sii diiwaangeliso qof kastoo doonaya way iska imanayaan akawnada aslong aad akashagas ka diiwaangashan tahay taa cabsi kama qabna way imanayaan marka ha sugin adigu insha allah walaalo sii diiwaangeli qofka aad doonayso absolute telegramka youtube-ka ka soo raacnay waana private ee content naga sii aha telegramkaad ku jirta okay telegramka haddaad ku jirto isla telegramka ayaa waxaa ku jira waxaan soo geliyay waa midaan anigu ugu talagalay dadka doonaya inay helaan more information connect and source marka isla telegramka ayaad more information ka sii heli doontaa waxyaalihii aan soo dhiga xataa telegramka dadka igu jira ma run ma helayaan connectionkayga laakiin comment waad ka bixin kartaa qoraal waan kusoo diri karaa comment wuu kuu furan yahay waana soo dhigaa the link information isla telegram marka isla isagaanan idiin soo dhigi doonaa connectionkayga insha allah dhib male ustaad adiga halkey kaala xidhiidha okay horta qofkii maanta la soo casumay qof walba wuxuu haystaa upline-kiisa ama sponsorkiisa laakiin wixii information ah aniga waad la soo xiriiri kartaa qofkii anigaan soo casumayna anigun baa heli doonaa linkigii iyo waxyaalihi oo kale laakiin caawitaan information ah su-aalo waxaa extra soo weydiin kartaa dhib male mood baana saaran wax ma boosta garayn karno yep okay insha allah anaa soo dhigi doona macluumaadka insha allah after meeting haye okay su-aalo hadday jiraan waa inoo furan yihiin any questions waxaan malaya su-aalihii macluumaadka waa laga garga wax su-aalo kale ma hayaan tim martida baan u jeedaa cafwan soo qora codka furta qacanta taagta idinkoo meesha aan waxaan kuri macluumaadka ka dhargin ka tegina yes ana shaakira ugu soo tuur insha allah si aad john usoo dhahaan halka ugala socdaan barayska noogu soo celi bay dhahday fardowsana barayskana usoo raaci walaa mar labaad share screenkii okay nice linkigan usoo tuur qofkaas samsung ugu qoran tahay si fiican haddaanad waxba u fahmin recordingta markay hadda dhammaato ee uu shaakir soo dhigay insha allah ayaa qofkii ku keenay haddii ilaha qadaro kuusoo dhigi luuqa haddii ilaha dhabeeni ilaha alkariim yes priceku soo kan ma sheegaysaan priceku waa kan hormarinaya okay 10k akoonka 10k-ga ah oo kale waxaad ku helaysaa $49 adigu $50 baad ku helaysaa akoon 10k aa ku furanaysaa 50k amazing big opportunity masha allah marka intaasaan maanaya inaad sheegaysay ya seniska qofka ma heli karaa trade ma samayn karaa
scannerska ya ha yes waad helaysaa gudaha cashix markaad gasho scannerska waad isticmaalaysaa trade waad qaadan kartaa personal hadda beauty about akashigas wuxuu ku fiican yahay akashigas waxa weeyaan macalinka xataa qofka yaqaana ma sugaayo isaga suuqiisa eeganaya maasha allah absolute companyga qof markuu iska diiwaan geliyo waxa weeyaan waa lagu caawinayaa horta qofkii linkigaagana soo heshaa muhiim laakiin inagu dhammaantiin group aan ku wada jirnaa group whatsapp ayaad heli doontaa oo lagugu soo dari doonaa groupka haddaad timaado wax weeyaan wax kasta oo caawina waad helaysaa meetina khaasaan leenahay xitaa team training ah video duuban oo aad yacni ogaanayso sida xitaa trade loo qaato kaa caawinaya iyo kuwo badan oo dambe aanu soo wadno iyo meetina aanu samaynayno oo dee si caadi ah wada isugu iman doona insha allah sida kan maanta oo kale laakiin kan maanta waa sabtida waa dadka cusub business overview aan samaynaa laakiin maalmo khaasa waxaa jira oo wiiga dhexdiisa oo team training ah team support oo dhexdeeda ah insha allah marka dhib male anyone oo sponsor kuwa laakiin we dhammaantiin isku mid wadana meel wada ku wada jirnaa السلام عليكم قعدت ماشي اللي قلت أنا يا قرواي ما هالكرا yab soo dhow hodan إن أنا عصب هاي إنكستو أنا مارتي أنا كعصبين محل شري إن كومبينيجا هذا وحكو عصب هاي إن أكاش أكاديمس كعصب هاي ما شاء الله مركا دد كان عصب أو هذا السوق قلي أو بحيي العكتي محل شري مدد بيسويان أو عاونية mase meel aan caawin u raadinaynaa ana loo sheegaya yes intaasoo weydiin lahaa haddaa fahamtay ma fahamtay warkayga macnaha ma dad baan raadinaynaa mase dad khaasaha jiro oo naga caawinaya ilaa anaga waxba kama naqaano lacagtiina waan bixiyey waan gatay noqotay already ha waan gatay ha marka haddaad member noqotay muhiimku wax weeyaan inaad suuqii adigu heshay challenge-ga free-ga ah aad maanta ka faa'iidaysanayso tusaale ahaan marka adigu maaha muhiimaddu inaad dad raadinayso sax may dadka ma aha dad aan raadinayo ma aha macnaha yaa nala shaqaynaya yaa wixiina baraya oo maaragtay suuqii dhageynaya okay taa waa anaga suuq iskaba tegi karno yab waayo caadi ahaan horta systemka wuxuu leeyahay tap to approve wax la dhahdo oo automatically qofku uu approve uu samaynayo tradadii loo soo dirayo dhanka xigtana qofkii doonaya inuu suuqa barto oo fahmana uu heli doona cashar uu helaya oo laga barayo laga caawinayo siduu suuqa uga faa'iideysanayo siduu iskiisa ugu geli karo iyo wixii lamid ah inuu cilmigii barto insha allah marka way helaysaan taana way jirtaa marka xagee u raadinaynaa halkaas sheekadaas whatsapp group kuwa jimciyo waxa aad samaysaa whatsappka isha ku hay training baa uu qabtay maalin dhawatalo jimcihii shaakir ma ogtahay sax arbaca kasta team training baa jira onboarding trainingka la qabanayo waxa weeyaan hadda waad garanaysaa marka team cusub ay bilaabmaanba training baa la sameeyaa si systemka loo fahansiiyo waxaan maadaama kugu cusub yihiin marka markastood aragto shaakiro zoom soo dhigaayo linki ama anoo soo dhigaayo ama qof soo dhigaayo teamka oo laleeyahay team training baa jira oon ahayn kan sharaxaadda isha inuu whatsappkii weeyaan deedna uu markuu soo galo uu ilaashto jimcihii kii la sameeyey recordingka dib markii aad u daawato waad fahmaysaa wuxuu ahaa inuu dadka cusubin specifically dadkii horena faa'iido ay ku ceshanayaan bay ahayd cajaladaha jirana dib bay noogu soo celin soo dhigi doonaa marka suuqan dadka aan hore usoo galo ka yara baqdaan marka ha ka baqanina horta marka hore maaha laga baqaya wallahi su-aashana cod baad kusoo dhigi kartaan gruupka xataa ma ogtahay walaalo inta ka badan aqoontii hayaa jiro kasoo wada jawaabaya ma aha un xitaa inaad trainingka sugtaan marka taa haddaa iyo tababarku maalin kasta dad ma raadinaysa mana si kaala ayaa waxna baraya diyaaraho maalin kasta lasoo gelaya ma ogta wax lasoo dhigaya cajaladihii la duubay daawanaysaa marka ha isku adkaynina idinku taasaan ogeyn inay maaragtay team trainer u jiraan ogeyn ma ogeyn laakiin 24 saac hataa habeenkii habeen barkii la tareed garayaa dadka anaa waxba ku jirin intaa waxaan bartaa laakiin micnaha waxaan leeyahay waa cabsanaynaa cabsiyaa nugu jirta cabsidaa marka sidii nalooga saari lahaa falankeeda inaa qabataan waaye cabsida adaa iska saaraya annagu waas diyaar garayn maskaxda ka saara diyaar baa nahay dhaha deetana madax u gala diyaar baa nahay haddaydan baranin ma baranaysaan waana taqaanaa diyaar garowgeyga waa taqaanaa qof yaqaanaa tahay insha allah waa isbaran doonaan inta kaletana waa isbaranaynaa waa run dadka waxay gruubka ku jiraa wax la weydiiyaa
su'aalaha badanna ma fiicno oo maaragtay dadkii luuqa loo gelaayo oo ma la dhibaayo laakiin waxaan jeclaan lahayn si khaas a maaragtay dadka maadaama cusub yihiin soo dhoweyn inaan qofka helo soo dhoweyn maaragtay oo khaas ah taasa codsanayna waana idin salaamaya asalaamu calaykum insha allah وعليكم السلام ورحمة الله. wanaagsan Yes, Maulid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا مغلى يا ورنا وعليكم السلام ورحمة الله. يا دمان عدة كجرت أوردن وأنا والسلام يا هو الرئي أستاذ فاكر يا أستاذ رضا أنا سؤال قرأت عن قبل horta su-aalka hor waxaan rabaa gabadha rooda igu horreysay kalsoonida qofka horta isagaa iska bilaaba intaasaan odhanayaa maxay ahayd talo qofku inuu isku kalsoonadaa fiican oo cabsida iska saaro markuu wax galayo marka teeraan ama meel meedaana laga ciyaarayana guul ama geeri baa waxaa lagu talagalaa guul ama geeri darro taasaan horta la iga ah talabaad su-aasha waxaan rabaa waktiga soo galayo maxay ahaydee tabtabku maadaama waktiyada aanu isku mid ahayn mar labaad baa lagu soo celinayaa oo waktiyada anagoo aan nooca waktiga caadiga ah lagu soo celinaya hadduu ku dhaafo dhacam habeen oo kale saqbarhkii iyo xaggaa yaa u ah maaragtay wadamada kale wakti caadiya marka taasaan rabay keliya in laga qabtiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Yes, Maulid aad ud mahadsantahay jazaaka allah khayr salaam adiga tradeadu wax weeyaan waxay caadi ahaan suuq wuxuu furmaa habeenkii adigu 12 sida saacadda Central European Time idinkana xaggiina waxaan leeyahay kowday noqonaysaa waxaanu xidhmayaa 10kiina wadankii oo kale annagana xagga Central kooda hornimo ma habeenimo kooda habeenimo ha kowda habeenimo ayuu furmaa marka macallimiinta ama dadka maanta suuqa inoo soo dira signaliskuna iyaguna waqtiyada kala duwan bay joogaan qaar Mareykan bay joogaan qaar Dubai bay joogaan qaar Yurub bay joogaan marka waqtiyadu mar walba wax weeyaan waxay ku xidhan tahay xilliga ugu badan waa maalintii laakiin xilliyada tareerada la soo dira sida caadiga marka adigu waxaad eeganaysaa notificationka deetana notificationkii wayna kuu furan yihiin mobilkaaga notificationkiisu kuu furan yihiin deetana marka aad la socoto traderska soo dhacayo kale taasoo marka aad approve samaynayso in 2 minutes ma kuu soo dhaco ma kuu soo galo صح ان شاء الله automatic markiiba laakiin caadi ahaan adigu muhiimaddu waa xilligii aad soo jeedo iyo xilligii aad markaa fursadii helaysa waxaa dhici karta dad doonta adigoo iska seexday in habeenkii qaar soo dhacayaan dhib kuma jirto kuwo badan oo kale iyaguna maalintii imanaya way بعد ما صرت أربع ما صرت adiga su-aal baan ku yara noqonnaa Firdawsa walaal aad soo dhigtay xagga barayska waxaan u maleeyaa waxoogaa weli si fiican maad fahmin 112ga maxaan ku helayaa taasi waxa weeyaan akaasha kasta dad Firdawsa ka tirsan tahay oo xubin tahay waa 50% discount oo 25k challenge account taasi marka akaasha kasta 50 geliso oo 112 noqonaya hadda waa kii shaakirna tusaaye oo hoos u dhacaya intuu 225 ka dhaco marka intaasaad ku helaysaa haddaad akaasha kas member tahay weeyaan ma ogi inaad tahay in kale haddii laakiin aad cusub tahay walaal waxa weeyaan 150 baad la soo baxaysaa akaashagas kadib baad helaysaa free account 25k ah waa sidaas insha allah I hope inaad walaala fahantay haddii ilaahay qadaro yep okay maasha allah gabagabadii marka wax weeyaan kulley saacad baynu ku wada jirnay sida saxda ah muhiimaduna waxay ahayd inaan helno macluumaadka iyo waxyaalaha aan u baahnayn in wax badan ka fahno maanta ka sheegsi MDC muxuu yahay businesskani si guud inaan maanta fahanay taa wixii ka dambeeyana wixii aad qof kasto maanta go'aan gaaray oo raba inuu businesskan soo biirana soo dhawow insha allah ya 20 bisha intaan la gaarin anyone adiga asxaabtaada qof walba maanta aad uga faa'iideyn kartid adiguba soo wada dhawaada insha allah muhiimadeenu wax weeyaan businesskani fursadda aynu ka wada faa'iideysano mustaqbalkana aynu wada dhisno insha allah okay hadhow inta aad noqon lahayd qof gadaal ka soo qoomay meetingkana ka soo qayb galay maalin baa halka lagu sharaxayay bilowgii dadkii joogay waan kamid ahaa waxyaalahaas dhan way dhacaan intaan business soo sameynayay waan arki jiray dad saas oo kale marka bilowga tahay dad xogaa yara caga jeeda hadhow marka businessku kacay dadka ka wada faa'iideystaan nasiib darro bilowgii dadkii baan kamid ahaa laakiin inaad kamid tahay baa ugu qurux badan bilowga dadka bilaabay
laakiin bilowga dadka joogay markhaatiga ka ah inaad noqoto ma qurux badna insha allah inaan taana noqonin baan rajaynaya aad noqon doontii dadka bilowga ka wada faa'iidaysan doona marka nothing to lose insha allah muhiimad wax weeyaan qaado go'aan tallaabo hore u qaad dhammaantiinaba tareen baan wada saaranay ama dee markab baan wada saaranahay insha allah meel baan wada soconnaa marka xigtana roodana aad baan uga mahad celinaya waqtiga quruxda badan dee dhammaantiinna team baan wada nahay aniga rooda idinkuwa meel baan kusugu iman doonaa miitiina wada yeelan doonaa supporti caadiya inoo furnaan doona qof walba marka wuxuu doonayo maxay laga haqabtiri doona si u fahmi lahaa systemka insha allah marka soo wada dhawaada